nabadgelyadu waa astaanta horumarineed ee bulshada leedahay taasi oo timaada markii la helo isku duubni shacbi iyo mid dawladeed dhaqdhaqaaqa ganacsiga ayaa mid xawli ku socda waliba xilliyada habeenkii taasi oo muujinaysa inuu jiro koboc dhaqaale iyo mid horumarineedba halkani waa magaalada Laascaanood waxaa lagu jiraa u diyaar garowga maalmihii u dambeeyay ee bisha Ramadaan maamulka gobolka Sool kan degmada Laascaanood iyo sidoo kale laamaha ammaanka ayaa socod dheer ku maray suuqyada iyo xaafadaha magaalada Laascaanood sidoo kalena goobaha fagaaraha ay kala shahay shacabka si ay ugu hurgalaan xaaladda ganacsiga mid amniba iyagoona shacabka kala hadlay goob fagaaraha أنا واحد كل دردار ما يأمن جاي لقى شقيه. هديت هاي شعبك يا هديت هاي عيد ماذا يا هديت هاي معمول كقبلك وحوي جناح ستة علماء ودينك وقاشة استمادة قبلك وعنك عطسنا إياه نسيدي ما طبعا شقي إن أمن جا لقى وضع شقيه إن أمن جا ميل لوجس سوود شيء وحوي هدان أمن تشرين دين نقول اللي متشرته وحوي إن النجار أحسن معي مهرد وين هذا إنه هرتاج إنه يقول رحلة بدن سيدنا هان ما يسوى هدان أمن تشرين أمن نبتقليه تشرين waxay ku qurux badan tahay oo ku dhisan tahay waa amniga kulli caawa farxadan bay noo tahay inaanu idu soo booqano sida iid u socoto sida hawlu u socdaan in halka waxa rabtaan dad badan oo dukaamaysanaya iyo moolkan quruxda badan ee muxuu ahaa macruuf oo dad badan ka dukaamaysanayaan nabadgelyadu waa sugan tahay wax dhibaato ma jiraan ilaahay inugu wado kula dardaarmaya inaad nabadgelyada adkeysaan waxaan kula dardaarmayaa inaad isku xidhnaataan waxaan kula dardaarmayaa kiina baahan wax siisaan waxaan kula dardaarmayaa midnimada ayuu qofku macna ku leeyahay kali waxa ma tarto waa aragtaan caawan lugeena hadaa dhahay mas'uuliyiintii gobolka iyo kii degmadaba bismillaahi kariim shacabka iyo dadku sidoo waa aragtaan halka waxa idin ka muuqataa nabadgelyo buuxda inuu gobolku haysto inay shacabkii iyo dadkii iyo hadii ay ku reeyay maamulkii gobolka iyo kii degmaduba ay caawa halka wada taagan yihiin saacadu waa baaray 8 iyo xooga wax ciidan ku dhex jira abeelaatan ma jirto waa aragtaan taliye qaybta iyo maayirkii iyo barasaabkii iyo saraakiisha iyo shacabka isdhex jooga taas waxa caydadaysaa in gobolkana ka gudbay waxyaalo laga sheegayay ee haday tahay nabadgelyo xumaa ka jirta iyo propagandadii dadku waxay ku sheegayaan inuu jiro horumar ganacsi sidoo kale ammaanku yahay mid la isku haleyn karo waxayna bogaadiyeen kormeerkan ay ugu yimaadeen maamulka gobolku dareemin ee koonfurta magaalada Laascaanood oo runtii shacabku ay ku jiraan diyaar garowga u dambeeyay ee munaasabada Ciidul Fidriga iyadoo bulshadu ay ku jiraan carwooyinka si ay u iibsadaan mariyaha ay ugu dabaaldegi lahaayeen adoo ku bilaabay magacaygu waa Maxamed Cabdullaahi Yuusuf halka waxaan ka salaamayaa bulshada magacayga garanaysa reer Laascaanood waxaan ugu hambalyeeynayaa Ciidul Fidriga ilaahay caafimaad ha inagu gaarsiiyo waxaan kaloo halkan hambalyo iyo tahniyad iyo salaam uga dirayaa garaadka guud ee beelaha dhulbahanta garaad jaamac garaad cali ilaahay sarta ku adkeeye ka joogtaan ilaahay ciidaysa kala igu gaarsiyo barwaaqo basbas waxaan leeyahay halkan waxa ugu hambalyeynaa garaad jaamac garaad cali waxaan leeyahay ilaahay ku daayiro amriga ku dheereeyo waa taariikh leh waxa isku dhex jira warcaawo waxa isku dhex jira shacabkii iyo askartii iyo dawladii baa isku dhex shaadhaysay laba wada dhasheen waa markii ugu horeysay ee maamulka gobolka Sool kan degmada Laascaanood iyo sidoo kale taliyaha qaybtu ay si wada jira u dhaxlugeeyaan goobaha uu shacabku ganacsanayo taasi oo muujinaysa isku dhawaansho iskaashi u dhaxeeya maamulka iyo shacabka Mukhtaar Cabdi Jaamac warbaahinta SBC Laascaanood